saddex iyo konton guuradii ka soo wareegatay aasaaska ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed oo ku beegan 11 bisha Abriil ayaa waxaa maanta munaasabad lagu xusayo aasaaska ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed lagu qabtay xerada warshada hilibka ee bartamaha magaalada Kismaayo iyadoona munaasabadii xuska aasaaska ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ay ka soo qayb galeen saraakiisha ciidamada qaybta koowaad gaar ahaan guutada badbaado qaran ee ka howlgasha magaalada tani Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose waxaana inta ay socotay munaasabadii weyneynta aasaaska ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ay dowladda military ay ku soo bandhigeen cutubyo ka tirsan ciidamada guutada koowaad ee dhawaan laga soo bedelay gobolka Gadow intaasi kadib ayaa waxaa warbaahinta la hadlay taliyaha ciidamada guutada koowaad gaar ahaan qaybta Jubbooyinka General Maxamed Bashiir Sanka waxaana uu ka warbixiyay ahmiyadda ay 11 bisha Abriil ay u leedahay ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed oo ah maalinta dhidibada loo aasay xuskaas ayaan gudanaynay saaka qof kasta oo ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed kamid ahna in uu xasuusto feesta kasta oo ay timaado ciriiri kasta oo lagu jiro iyo colaad kasta oo maartay ciidamadu ay ku jiraan in la xuso waa laga maarmaan ururkan magaciisa waxa la yiraahdaa badbaado qaran ururka badbaado qaran baa la yiraahdaa degan warshada hilibka ee magaalada Kismaayo waxaan maraynay feestada ayada ciidamadu ay lahaayeen oo muddo badan aanan marin in aan xusno ayaa fursad noo saamaxday sidaas darteed dowladtuska aan maraynay waa xuskii ciidamada maartay sanad guuradii inta kadib waxa la wixii waajibaad qaran ah oo lagu soo aadan nooc kasta oo ay u adeeg yihiin gudaha waa laga maarmaan diyaarna waa sidoo kale Ismaaciil Sheekh Cabdi Qorax oo isna kamid ah saraakiisha ciidamada guutada koowaad oo isna dhankiisa la hadlay warbaahinta ayaa waxa uu hambalyo u jeediyay guud ahaan ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed oo maalintii saddexaad maanta ay socoto xuska 13 guuradii ka soo wareegatay maalinta dhidibada loo aasay maanta waxaan aad ugu faraxsanahay 13 Abriil maanta ku beegantay aasaaska ciidamada Soomaaliyeed inaan u dabaaldegna si farxad leh soo dhaweeyna annaga oo ah guutada koowaad ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ee dhawaan soo gaaray magaalada Kismaayo ee laga soo bedelay gobolka Gadow urur kamid ah mas'uuliyiintiisa marka waxa weey arintaas aad ayaan ugu faraxsanahay waan u hambalyeynaa guutada gaar ahaan guutada koowaad gobolka Gadow ee laga soo bedelay ciidankan mar haddii ciidanku ka tirsanaa maanta Kismaayo uu joogo sanad guuradiina uu ku xusaya wax dhibaato ah aysan ka jirin arintaasna ay ku timid halkan iyo shaqo iyo kala dhimasho iyo dhaawac ayaga ay qabteen iyo macal ciidamada kale si gaar ah waan ugu hambalyeynaa waxa kale oo hambalyeynaa guud ahaan ciidamada Soomaaliyeed oo dhan meel kasta ay joogaan waxaan ku bogaadinayaa howlgallada iyo shaqooyinka iyo halganka ay ku jiraan inay si laba jibaaraan si dadkooda nabad iyo horumar saddex iyo konton guuradii ka soo wareegatay aasaaska ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed oo ku beegan 11 bisha Abriil ayaa waxaa maanta maalmo yar kadib laga xusay magaalada Kismaayo oo qayb ka ah deegaanada ay ka armiyaan ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed Cabdimahad Bashiir Maxamed Bashka Universal TV magaalo xeebta Kismaayo